عمها تكيدو تدبع دلغنيرو أنك عقلاني عيدنا هضنكا موصلك عنايو بيرها مصرعنا عمها تكيدو تدبع دلغنيرو أنك عقلاني عيدنا هضنكا موصلك عنايو بيرها مصرعنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتي مداوضيال ملك استاجوكتان كسو دوادا برنامجكي بيرها برنامجka toddobaadkan daawadayaal waxaanu ku eegi doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Professor Aadan Cabdullaahi Muuse iyo xubno kamid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa kormeer shaqo ku tagay deegaanka Abaarso waxaana bulshada halkaas ku dhaqan ugu baaqeen in kor loo qaado wax soo saarka beeraha isla markaasina laga faa'iideysto xilliyada roobaadka agaasimayaasha waxaa kala duwan ee wasaaradda horumarinta beeraha gudoomiyaha deegaanka duqeyda kale ee Abaarso inay ka faa'iideystaan oo iyagu wax qabsadaan oo dhulka ay ka shaqeystaan oo u soo jeestaan saad ogtiina maanta duruufo badan baa jira oo caalamka ka jira cabsi badan baa la qabaa in cunto la'aan dhacdo marka ninka beer haysta adduunka waxa la aaminsan waa ninka badbaadaya laakiin waxaan cabsi ka qabnaa inagoo beerihii haysano carro fiican haysano biyihii haysano inaynu ku dhex dhimano ayaan cabsi badan ka qabnaa inagoo waxba qabsanaynin awgeed marka waxaan idinkula dardaarmayaa wasaaraddu waxay qorsheynaysaa inay campaign ay dadka ku dhiiri gelinayso ay u dhaqaaqdo tanna qayb ay ka tahay marka waxa weeye waxtarka wasaaraddu uu kooban yahay haddii loo baahdana dhinaca aqoonta iyo hagidda hay'adaha iyo kolba wixii ay qaban karto diyaar bay idin tahay laakiin waxaan idinkula talinaynaa oo guud ahaana beeraleyda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland aan faraynaa in ay ogaadaan in xaalada adag jiraan oo aad arkaysaan indhihiina ku aragtaan maanta abaarihii raadka ay ka tageen oo xoolo iyo dadba la taag daran yahay sidaad sheegteen intani waxay noqotay waxtar kooban bay ahayd oo dadka nooc gurmaday u noqotay laakiin wixii de ma sii soconayo marka waxa weeye wixii aynu helo waanu ku darsan doonaa laakiin inay nagu dhaqaaqnaa loo baahan yahay waxaan aad iyo aad idinku celcelinaynaa oo aad iyo aad idinku dhiirigelinaynaa inaynu wax la soo baxno oo inuu nin kasta bal isku dayo at least inuu inta uu qoyskiisa ku noolaan lahaa oo soo saaro waan haysanaa dhulkii waan haysanaa carrad wanaagsan oo wax beeri karto nasaba biyuhu ay nagu yaraadaan laakiin waxa weeyaan biyaha kolba la helo iyo la qabsadaa intaasaa laga faa'iideysta qofkii ballay qoodi karaya biyaha ku joojisan karaya kii barkad ku joojisan karaya kii si kale u maareyn karaya waxaa loo baahan yahay inaynu ka faa'iideysano dhulkeena oo aynu u soo jeesano waxaynu isku halayn karnaa ma jiro caalamku nin walba ama waddan kasta isagaa isku tashanaya maanta oo wuxuu ka baqayaa in dadkiisu macaluulaan ama dhibaata ku dhacdo oo ay ku filaan weydo waxa uu soo saaraa kuwii dibadda u dhoofinayay Hindiya iyo China iyo hore u joojiyeen innagana waad ogtihiin oo dekedaa berberaad bay wax inooga yimaadaan hadday toddobaad inaga xidhnaato waddanka dhan dadka ku nool ugu dhimanaya waayo maanta waxa weeyaan dhulkii miyiga ahaa ee xoolaha ku nool xoolihii way dhammaadeen oo yaraadeen dadkiina dhaqankii u isbedelay oo bariis iyo basta ayaa guri walba dhex taala dee waa mushkilad weeyaan inaynu gurigii miyiga ahaa ee beerta dul yaalay haruurkiisii naco oo maxaan ku dhahdaa uu baasta iyo bariis rufucii soo dir maalin walba telefoonka ku hadlay oo uu ku meeraysto waxaas waxa weeyaan nafaqa ahaan iyo nolol ahaan midna waxa weeyaan uma dhigmaan waxaynu la soo baxi karnaa inagu waxaynu inaga la soo baxaynaa ka caafimaad badan kaaga dhow an caqabad kale dee ilaahay masiibo kale keeno oo roob la'aanta iyo abaaraha mooyaane cid kale oo kugu qabsanaysa iyo culays oo kaaga baxaya aanu jirin haddaad dhulka kala soo baxdo waanu ka caafimaad badan runtii waxaan jecel lahay guud ahaan bay beeraleyda Soomaaliland inay u diyaar garoobaan inay wax la soo baxaan oo xil ay saaro
wasaaradahaan anaguna wixii aanu qaban karna waan qabanaynaa dhiirigelintaana waxaa laga yaabaa in campaign uu soo baxo team oo imkaanasa dadka gubaabinaya oo sidii maxaa inaan tabliiq gallo tabliiq wax soo saar inaan gallaan u baahannahay oo dadka ku dhiirigelina inay wax la soo baxaan hay-addii hawshan qabatayna aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa WFP waxaanan ka codsanaynaa oona aad iyo aad uga codsanaynaa hawshaasi wax weyn bay dadka u tartay inay sii wadaan intaa iyo in ka badanba inay degaankan iyo degaanada kale ba wax nagala qabtaan shirar kalena waan ugu yeedhi doonaa insha allah mediahana waxaan u marinaynaa hawshaasi wax weyn bay tartay waa hawl u baahan in la sii wado oo dadka loo kordhiyo waayo waxay dad kale lagu dhiirigelinaya inay wax la soo bixi karaan dhulkii la xidhay oo imika aad ku sheegteen 160 miyay ahayd 1000 mitir dhul yar maaha runtii haddii la beero waxbaa laga soo saari karaya marka waxa weeyaan agaasimayaasha waxaan u wadnaa in ay halkaa kasii wadaan baan doonaynaa agaasimaha waaxda wax soo saarka iyo sugista cuntada waa ninka hawsha ugu badan aan u diri doono insha allahu tacaala doonayna inuu shaqeeyaan oo ay dadka xagga aqoonta kala taliyaan waxaa kaloo idinka codsanaynaa inaad samaystaan ururo iyo iskaashatooyin wasaaradduna waa idiin fududaynaysaa sharciyadooda iyo nidaamkooda idin fududaynayaan si aynu u derdergelino wax soo saarka intaas baan idin odhan lahaa waxaan tegi doonaa fiilka insha allah hay-adaha WFP iyo kuwa kale ee ka shaqeynaya cash for workana waxaan ugu baaqaynaa in ay sii wadaan hawshaasi waxtar weyn bay leedahay xagga wasaaradda iyo xagga wax soo saarkana wax weyn bay ka taraysaa xagga degaanka iyo dadkana gurmad bay u tahay marka inay sii wadaan baan iyagana ka codsanayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii beeraha anigu cabdiqaadir cabdullaahi nuur ayaa idiin soo saaray dhanka kamaradu waa awil cabdi kaahin barnaamijka lamida ku kulmi doono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيرها ما صنعنا